waa qaybtii 21aad qisooyinka nebiyada. waxay qaybta hore inoo maraysay nebi muuse calayhi salaam iyo fircoon oo ku ballamay in meel fagaaraa la isugu yimaado si xaqa iyo baadilka loogu kala saaro. waxaa goobta yimid sixiroolayaashii fircoon, waxayna fircoon ku yidhaahdeen, wax abaalguda miyaan leenahay haddaynu ka adkaanno muuse? kolkaas ayuu fircoon ku jawaabay, haa, waxaad ka mid noqon doontaan kuwa iigu dhow. intaa kadib sixiroolayaashii ayaa ku yidhi nebi muuse, ma adiga ayaa bilaabaya mise annaga? nebi muuse wuxuu ugu jawaabay, idinku ku hormara. kadib sixiroolayaashii waxay goobta ku soo tuureen ulo iyo xargo. goobtiina waxay isku beddeshay meel ay buuxdhaafiyeen masas iyo abeesooyin. fircoon iyo qoomkiisa aad ayay u farxeen. nebi muuse calayhi salaam wuxuu dareemay xoogaa cabsi ah. kadib alle ayaa u waxyooday oo ku yidhi, ha cabsan, adiga ayaa gacanta sare leh. kadib nebi muuse waxaa la faray inuu dhulka dhigo usha uu sitay, waxayna ushii isu beddeshay abeeso weyn oo mid mid u cuntay ulihii iyo xargihii ay sixiroolayaasha soo rideen. kadib ayuu ushii si deggan u soo qabtay nebi muuse calayhi salaam. halkaas waxaa sixiroolayaashii ugu caddaatay in muuse uu yahay nebiga xagga alle laga soo diray, arrinkuna uu sixir ka weyn yahay oo awoodda rabbi ay meesha timid. waxaana wada sujuuday sixiroolayaashii oo yidhi, waxaynu rumaynay rabbiga caalamiinta. fircoon oo tallaabadaasi ka carooday ayaa aad ugu goodiyey inuu gacmaha iyo lugaha ka jarjari doono. fircoon oo badda lagu halaagay. markii mucjisooyinkaas la tusay, fircoon ayuu ku madax adeegay. allah wuxuu ku imtixaamay masar iyo dhulkii fircoon uu ka talin jiray abaar, ayax, xasharaad kala duwan iyo biyaha ay cabi jireen oo dhiig isku beddelayay. mar kasta waxay dhihi jireen, muusow, dhibtaas alla noo bari inuu naga qaado, waynu rumayn doonnaaye. balse ma aysan rumayn, wayna sii wateen gaalnimadooda. allah subxaanahu wa tacaala ayaa nebi muuse u waxyooday in isaga iyo reer bani israa'iil ay ka baxaan masar, waxaana bixitaankooda ka war helay fircoon oo soo daba dhigtay ilaa nebi muuse iyo reer bani israa'iil ay ka soo gaaraan badda qarkeeda. nebi muuse iyo qoomkiisa waxay dhexda u galeen badda iyo fircoon, balse alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku amray nebi muuse inuu badda ul ku dhufto, waxaana ka dilaacay waddo weyn oo la mari karo. nebi muuse iyo qoomkiisa waxay ka gudbeen waddadii. fircoon ayaa isaguna soo dabagalay. markii ay dhexda joogaan fircoon iyo ciidankiisa ayay baddii isu timid oo sideedii ku soo noqotay. halkaas ayayna ku halaagsameen fircoon iyo qoomkiisa. nebi muuse iyo dadkii la socdayna ayaa ilaahay ka badbaadiyey. alle subxaanahu wa tacaala markii uu halaagay fircoon, waxa uu reebay jidhkiisa si ay cibro ugu noqoto dadka kale. nebi muuse iyo reer bani israa'iil ayaa dhulkii u haray, waxaana la siiyey kitaabka towraad. nebi muuse iyo nebi haaruun waxay ku dadaaleen dacwadda alleh iyo in reer bani israa'iil ay caabudaan allah oo keliya. nebi muuse oo ku maqan halkii waxyii ku soo degi jiray reer bani israa'iilna uu ku dhaafay nebi haaruun, ayaa waxaa yimid nin la yidhaahdo saamiri oo baadi iyo dembi ku riday dadkii. wuxuu sameeyey ninkii shay qaab dibi leh, wuxuuna u sheegay reer bani israa'iil in dibigan uu yahay ilaahoodii iyo ilaaha muuse. nebi haaruun ayaa marar badan waaniyey qoomka, una sheegay in ilaahii abuuray uu yahay kii badbaadiyey. nebi muuse markii uu yimid wuxuu la anfariiray, waxay ku dhaqaaqeen qoomkiisa, wuxuuna gubay dibigii. wuxuuna ninkii saamiri ahaa ku habaaray in ummadda uu ka dhex baxo oo aan la taaban karin. nebi muuse calayhi salaam wuxuu soo xushay 70 nin si ay alla ugu toobad keenaan. nebi muuse wuxuu muddo ugu yeeray reer bani israa'iil inay diinta soo galaan oo ay qaataan amarka allah. qisadii saca iyo reer bani israa'iil. xilligii nebi muuse calayhi salaam waxaa dhacday in nin hantiilo ah oo reer bani israa'iil ka mid ahaa la dilay, waxaana lagu wareeray cidda dishay ninkaas. markaas bay reer bani israa'iil u tageen nebi muuse. nebi muuse calayhi salaam ayaa alle baryey si loo tuso ciddii dilka geysatay. alle ayaa faray reer bani israa'iil inay qalaan neef lo ah. reer bani israa'iil waxay ku warceliyeen, ma nagu jeesjeesaysaa muusow? nebi muuse wuxuu yidhi, ilaahay ayaan ka magan galay inaan jaahiliinta ka mid noqdo. reer bani israa'iil arrinkii way isku adkeeyeen. waxaa loo diray lo uun, balse waxay ku yidhaahdeen nebi muuse, muusow, rabbi noo tuug si uu noogu caddeeyo tilmaanta sacaasi. waxaa loo sheegay in neefku uu yahay mid aan duq ahayn oo aan yarayn, labadaas ayayna u dhexaysaa. haddana waxay codsadeen neefkaas midabkiisa in loo sheego. waxaa loo sheegay inay tahay sac booro ah oo boornimadeedu daran tahay oo cajabisa kuwa eega.
waxay mar kale soo celiyeen su'aal, alle noo bari Muusow ha noo caddeeyo waxay tahay, maxaa yeele waxaa iskaga kaana darsamay lo'da, hadduu alle doonana waan ku hagaagaynaa. Waxaa lagu yidhi, waa neef lo' ah oo aan laylisnayn oo dhulka qoda, beertana ma waraabiso, waana mid aan ceeb lahayn, midabkeeduna saafi yahay. Markaas bay soo heleen neefkii. Kadib waa la qalay, gabal ama waslad hilibka neefka ka mid ah ayaa la faray in lagu dhufto ninkii meydka ahaa. Kadib alle ayaa soo nooleeyay ninkii, waxaana lagu yidhi, yaa ku dilay Hebelow? Kolkaas ayuu sheegay ninkii dilay oo ahaa wiil uu adeer u ahaa. Sidaas ayuuna alle u soo nooleeyaa dadka dhintay. qaybtan halkaa ha inoo joogto. Soonka iyo acmaasha wanaagsan Allah inaga wada aqbalo. La wadaag walaalaha kale si ay ugu cibro qaataan, adna aad ajar ugu heshid oo inoo sheer gareeya. Ramadaan mubaarak.